kiisa guudbu noqday. waxaa weeye insha allahu bilahi kariim ninkaas waa cumar haddii dhintay annaga reer waasasiya oo afarka oo soo harnay waa sumaana sharaxid waxaa ku sharaxay wiilkaas waa xaashi waa xasad waa xaashi waa sakiya buuna leeyahay aabihii waa ahaa oo cumarkii waasasiya asaguna inta kale u noqday oo reer waasasiya nabada hore u noqday waxaa lagu yeeshay aqoon diini iyo maadi iyo waxgarabnimo iyo wax dibadbo asagay soo sheegeen soo magacaabeen annaga oo 3 nin oo reer waasasiya cabdullaahi waasasi waas maxamed xuseen waasasi waas maxamed ayaga waasasi waxayna lagu yaraa oo la yidhaahdo xali waasasi dadkana in yaqaano reer waasasi waas maxamed saddexdadaas waxaan isku raacnay reerkada meeshay u dokeen waasasi 150 weeye 150 kaas oo lagu sameeyey oo soo baxay ninkaas xulkaas oo soo baxay nabadda dibadda asagaa la isku raacay reerkada annaguna waan ku raacnay oo u saxiixnay in uu maanta ankaho reerkada ay keeni karana uu noqon karo awoodu waasasi waas maxamed taariikhdiisii uu ku celin karo dib reerkada ugu celin karo uu noqon karo boqorada soomaaliyeed boqorkooda jiif oo jiif ama kinga uu noqon karo aabahay sidaas ahaa adiga saa weriye markaa tahay taariikhaha waa haysaa weriye magacaadana dowladaha sheegin sidaas waa magacaada inaada ii sheegin waxbase maaha waa maxamed waa xaashi waa saki waxaa weeye awowgii taariikhdiisii ayuu reerkada dib ugu celi karaa reerwaasaan soomaaliyeedna sidaas ugu noqon karaa waa keera waa maxamed waa xaashi waa saki sidaas ugu noqon karaa intaasaan kaaga warbixinaya. waxaa weeye ninka asagaa sidaan filahayo waa maxamed waa xirsi waa maxamed qansoona aan ku magac dheer ninkaas nala matalo annaga nala matalo warqadahaasna waa been annagoo dhan baa beenteynayno reerkadoo dhan baa beenteynayo ninkaas wax xumaata la yidhaahdo meelna kala soo gasho inna waxa yaraatee dabeecad xataa ani asaga oo aabihii aan ahay sudugsi aan wada galnay xuseenugaas iyo ugaas maxamed ugaas xaashi isku dugsi aan ahayn weligii xumaan ma soo gelin meel kalena uma soo geliyeecin sida dowladda soomaaliya burmurtayna waxbarasho kaluu kaga jiray waxaas walaaqaha uu soo qorahayo maxamed waasasi waa maxamed waxaa weeye been weeye banjoola been buu qorahayaa eexduuna ka galahayaa wiilka aqoontiisa iyo raganimadiisu eex ka galahayaa waana waxaas akhri adduunka qabsan doona weeye waalid weeye wiilkiisa inuu xumaan ku sheego waa mamnuuc diinta islaamka iyo midda gaalada midna ma dhigaysa ma garatay weri waa 3 nin waan ku jeedinay maxamed waa xisi waa naga maqnaa gansharaa ku magac dheer hooha ayuu jiray wax warahna wuu naga diyey wiilkaas baraxaan reerkada daarood islaamka ilaahay wey daarood soomaaliya dhan ay waato anigu ma raba ayuu leeyahay ma garatay waa keligii inta kale oo reer waasasi ahayd ilo waa cumar hadee aaboo dhintay xoolihii geediyo loodii leeyihiin asaga waxaad moodaa yani wiilka gabad buu ka dagayaa aqoontiisa iyo nuuciisa gabad waana la hadalnay adduunka wuxuu leeyahay xataa reewasasee kale waa waalayihiin buu layiri waa ka dhaadhacne waa la hadalnay in uu wiilka aabaha adeerka u yahay oo madiga oo waa xaashi wiil gabar buu ka tegay iyo islaan iyo xoolo badan buu ka tegay inuu wiilkaas caadeeyey oo ka reebno oo wiilka maxaa udhaxayntahay iskada xaq buu u leeyahay aabihii waa cumar haddii uu asaga joogo boqornimada qaatay asiga waa ilaahay abuursaday asaga ayaa tegeed curan waa ula tilmaana bahasha wada socon jirtay maxamed sidaan kasoo reebo markaan raacno basheeku asmaan buu nagala daalahayaa oo anaa yani waxiida kale waxba idin buu leeyahay waa ka wada weynahay kurti maaliga xuseen cabdillaahi waa ka weynin ma garatay bismillahi raxmaan raxiim horta bishii jacala hata lagu hagaajiyo waxa weeye jaalaweriye soomaalidu horta waxay ku mahmaadaa wixii ku nooleyn karaa ku nooleeya iyo soomaalidu horta ay ku mahmaadaan waxa weeye meeshaan yarta ismale shaqana iskuma ayda ilaahay markaan ka baqano labada wiilba aabbaan u nahay adeer baan u nahay ma aana kala jecelin
ilaahay kuusma ogolaadeen meeshaas markay waxa weeye annagu marka waan tashanay markii hore oo ninkaan ugaaskan ugaas maxamed ugaas xaashi uu ka ilaahayay Canada waa ka tashanay arrintaas yaan maanta sidee nooleyn karo ilaahay baa wax nooleyn karo burbur badan baa la soo maray dib badan baa la soo maray baadi badan baa la soo maray abaar badan baa la soo maray dadki wax u hadlo ma jiraan madax male ilaahay kuusma ogolaadeen yaa maanta yaa dadki wax ka daran karo ninkaan baan marka anagu soo sheegaraynay ninkaan baan soo darabnay ninkaan baan keenay marka waxa weeye wixii ku nooleyn karaa ku nooleeyo waan yaqaanaa aqoon ku yaqaanaa ninkaana dawladda hore buu ku ahaan jiray waad garanaysaa dhaqan buu u leeyahay maamul buu u leeyahay adkaysi buu u leeyahay ilaahay kuusma ogolaadeen geesinimuu isku leeyahay markay saas ay tahay warkaa hadda ninkaan dhagaha dhandoolaha uu soo wacay uu leeyahay waa shabaab been buu ka sheegay labada waa kaasna aabbaa u nahay kana aabbaa u nahay laakiin maanta ninkii wax galmale oo wax kala hayo ninkaan baa maxamed ugaas xaashi ugaas hersi waxa weeye awoodii shaqadii awoodii uu qaban jiray nin qaban kale weeye oo aabbaha ugaas hersiga wuxuu ahaa boqorada Soomaaliyeed boqorada boqorkooda buu ahaa markaasiyaa leeyahay odayaasha Soomaaliyeed baa og dhaqanka Soomaaliyeed baa og boqorka uu ahaa haddana sidii weeye waxa awoodii raaci kara oo qaabkiisii iyo maamulkiisii iyo adeegiisii iyo ilaa ka hor bidcadiisii iyo wanaagiisii wax raaci kara asaga baa la arkaa anagu baan caleema saarnay aan boqornay ninkaasaa wax qaban karo dadkana wax u qaban karo wixii wax qaban karaan oo wax laga dhigaa wadooyin lama rabo leeyahay waxba kala jiraan waa lagu ilhaameyn hayaa waaska lagu ilhaameyn hayaa ninkaan inuu shaqeeyo hadda Mareykanka yimid sidiisa dhikar muqaada dhikar waxa weeye wax dhikar qabana waa ogtahay wax waana ma oo wax mid qabana ma oo qofku weeray jeed ku tagay waa macro inuu mid qabana waa macro laakiin u dabada dhikar oo qaba waa haaf wali walaalow gacalle waan la hadalnay wuu naga diiday waan wacanaa wuu naga diiday haddii wax ku diiday oo hadda sirka joogta wax hadda basarka gaad la hadasho mikro haddi wax saas weeye qofku ama wax diidaa ama wax ogolaadaa ama Allah haddii niman kula hadli oo markuu arko ummakaadi iyo maqdacadu arko شو أقول لهم؟ أنا أتكلم الجاب موضوعي. أريد أن أحكي الجوار إلى قالوا أحكي الجوار إلى أريد أن جريم ويجي وشو كونا لا يقول صار ووحن كل وعن كأسائنا ودولة الصومالية عن كأسائنا واحد ذكر لك كم اللي كان إلى كل شيء هو كذا وكذا وكذا يقول هذا فعلا الدولة يعني مسافة ما كأسائنا أنت عدو شيء جنبك كشيء يا وحن كل سيدنا كان وري هرت علود هيا أخي علود هيا وحي وحدين قبل وحوالي مقف سيدنا وحوالي مقف قبل وحوالي مقف وحوي يرينا ليش مشوار اللغة ترى وعاص وحبك مديان وبعض غير تشوبي عشان بالله هذا أنت يا عصر دول يا دول واحد أول يراجع وحمين يراجع ومنك كان الموضوع عمره إلا معايا ما عري هم بصوت محمد بصوت عري وأنا ناسي سيادي وأنا عايز أما الناس العادة واحد وعكاء أو أنا وعكاء وبدي أنا الدعوة أما الدول أنا بس النور بمكو ما أنا عنده فرقة وبدي شيء من وحاول محمد وعمر أنا جاي حسين يا عبد الله يا أكرم هو سيدنا
baana loo yeelay inaan raadino halkaa markuu maqlay gaarigan asaa ku subanay ayuu ka tegay meesha gargaaray فتح شغله شرعي علاقة يا خاعي ومامورها بصوتها مامورها المشلة وحاولت في المشلة اللي رباه نرجع الوقت كذا وحاول إن شاء الله وزميل كريم باقي حاجة اللي جايين يدوك وحي مريان إنه بس حاجة تعملين وحلقة السنوات حاول حلو قدام من وقتها من الرجال ومتعرفش على وصلي وغياشي بيت دوغس في الجايين هناك إنه هو تعشق ومركز حرام فوق قال مطعي وحاول يمشي أنه عند غازة إنه يعني العبد ما يوصل العبد غياشي العبد الرجل مصوعين واللي يمشي ماشي يكون ينزل قرمة بعد ما نيجي أمن أو بعد شوي عند المركز هذا مسؤول كأدي ويرو حركات يكون وهري إنه هو تعشق حمام محرم محرم وحين العبد هو يمشي كنت من والله كنا والله بسوي والله كنت وين هي هذا عيب ويعلقنا كارو واحد في مليون ويجي ما هو جرك الدورية هاي وين بيني وين هو جرك تا أنا محمد لما محمد منه وعاش هو هاي منه وأخبار هو هاي وأنا كلمتي وحمل يعني كان مدعوين ومهرن كان مدعوين ومهرن وحصل ضمن الحالة وكلام مريحان أمرية وسميرة أمرية وحمر وكلام وحين هي نحو ما حرق ما يدي ما أفلقادية هم كل شيء هاي واحد هاي وانتي حتى لما حد بسلاف لقاديات وحويس من حاله ولبنا غير معي من ده لحظة الماكن كلام الشيء لكن ده كلام ويد عاديان وإنه وحاسي ويد عاديان والله إذا صلح لي أسرع دعويني وحصل وقرأي يعني ذلك الدولة أنا سيء هاتي في دورة شو أمام غضب ملاحة سيء هاتي وإنكم مرسي لغطة جوا بغطيني لغطة ونكي حمد الله على هاي فيه ونكي مجهد رجلها وبرتريس ونعيد رسيه البني آدم فلا إلهي والله هدفها فيه وهذا المسكد عيداني ودفها من حولياش على إسعايه وأنا يعني سينا إسعايه لا لا يمعيس لك فامر ما هو يرى مركز أيضا بيسجل حمد بن سواء بعض ليلة يخصر بحي وصافة صحي فوضنا ليبدو إليه بروحه ونقول على النوم من سواء هذا بروحه ونقول ليه بيعرف فوي هذا ليه نشوف هذا ليه بيعرف فوي هو حاول مشوار مقر هذا والله ماشي شغال والله ماشي شغال أنا هو عندنا اللي بيروح ما كان عامل كيف هنا كذا هذا إن عن ما كانوا عن إيه بدون ماشي فيه وساعة على النقطة وحين لكن ساعة الله ابن بس وحويجين كانوا يجيبين هذا والله كذا لكن محمد قصار مثل هذا من قصار هذا كتر على إلا يا دكتور مقرة يخرج هو ويجي الدكتور مصري مقرة يا لكن عليه وحكون شيء هي إلهي حق مركي أو بلادك أو دوره يعني حتى لما يصير عاطي إلهي دوره حتى وحكون شيء هي وين حمد هذا كلمة حمان ملك لكن حقا وعاشي هو الصورة حتلوها حتى لو يحصل هذا مركي من تيم من كانوا يقتلوا وحنا نروح للزغيين من كانوا يحصلوها هو لا يحفظ رأسي وحاول فرقوا وحيقانوا ويوصلوا هي وحاول نكاس مرعاه واحد يعني إنه والله وحلله إن يعني من هذا السائلين أنا يعني مرعاه واحد شو قرآن وعلى مقارنة رقم كل شيء ما يمرزه وحاول لك كذا وذلك دري الجبل وحمل كلامه وبش يقول له هاي علم دين ما يقول لك أنا دين ما يقول لك أنا سمعوا خصوصا واحد ومش كذا حاول بدك بيوم الصومالي أنا أقول لك أنا ذاك اليوم ومشي حسب بارك وقت أنا صار لي بحب دقيقة كذا هاي مركز وحاول نكاس من الساهلة كذا وخبر عشان وخبر العلم صورة كان هو غير الساي ولا أنا بقوله غير الساي هذا غير وطبعا أنا غير كل من أيوة ولا ما على إنت كان والله عشان